السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالي محمد وأذن سلام يا ولاشين أذن له سود هذا بين وناكتن معنا وناكتن ما شاء الله وناكتيال وعن ميل والبقت شوكتان ولا عليال وحليا بناهي ورت وحيد الله رمضان مبارك رمضان كي سود وهذي قفل بمثلنا رمضان مبارك بنليه هاي إلهي عافمات يعمر دير هالنسيو يعبادة سوبان انت حنوسنا وحن إله أكبر يا إنه إلهي عافيو انت عافمات قبتنا إلهي عمر دير يعبادة سوبان سيان إله أكبر يا إذنك إلهي مد لبعت ومد الصوماليات انت إي حناقسن يا انت إنعب iyo inta maaragtay yacni iga tabanaysa waxaan rajeynayaa inay iskay cafiyaan anigana cafis iyo misaamax baad iga tihiin waayo ramadaanka waa in la is cafiyo mar walba waa in la is cafiyo laakiin ramadaanka haddaad doonaysa in soonka aad 12 saacadood aad sooman tahay ama 24 saac ama 26 saac 24 saac maaha qaar baa 19 saac sooma dadka qurbaha ku nool ugu yaraana 12 saacadood sooman dad baa jira sida cimilada wadankeena oo kale Afrika waxaa la soomayaa 13 saac baa la soomayaa maasha Allah tabaarakallah waxaan idin leeyahay walaalayaalow meel walba aad joogtaan cafis iyo masaamax anigana halayskayso cafiyo muxuu ahaa Allah musta'aan waxaana idin leeyahay caafimaad iyo cibaado suuban ku sooma inta dhibaataysan ee dan yarta ah ee muxuu ahaa aan waxba haysanin waxaa Ilaaha ugu baryayaa inuu faraj khayr qaba u furo oo aanan waxba u awoodi karin aanan gaarsiin karin waan u duceynayaa kal iyo laab baan ugu duceynayaa insha Allah waxaan Ilaaha ugu baryayaa masaakiinta in maaragtay Ilaahay faraj khayr qaba u furo walaalaha Soomaaliyeed waxaan ku codsanayaa ana walaashii Nimcanuura ah waan arkay aad iyo aad baan macnaha waxaan rabaa waxaydan ogeyn inaan idin sheego walaalayaalow annagiya isku mashquulsan annagiya isku maqan annagiya macnaha waxaan ka hadli jirnay xagga dagaalka xagga iga dhig ninkii wax dila asaga maalinta qiyaamo dhibaysaa ninkii dhiig daadiya asaga dhibaysaa ninkii wax dhiba ama wax haystay xasad sameeya asaga dhibaysaa asaga iyo Ilaahay u taala laakiin dadkan adduunyada isku iloobay baan la hadlayaa Soomaali Maxamed adduunyana qaadatay walaalayaalow inaan dib u laabano oo kitaabkeena sunnadeena aan dib ugu laabano ayaan doonayaa insha Allah ta'ala wax badan baa inaga qaldan wali qof ina qabtayna ma jiro oo muxuu ahaa yiri walaalayaalow saansi ma ahan xataa waxa aan la yaabay oo mucjiso ugu noqotay inamadii Soomaaliyeed macnaha xaalku adduunka meesha uu marayo waad u jeedaan xataa heer waxay maraysaa xaaladda aan ku jirno in kacbada Ilaahay la xiro ma dhicin kacbadaas oo la xiray adduunyadana kama dhicin ilaa maalintii Nabi Ibraahim uu sameeyay kacbadaas oo dhisay ilaa iyo maanta haddii aan qaldamin weligii Allihii lama xiran xaramka lama xiran waa Makal Mukarrama magaalada Makal Mukarrama kacbadeena ku yaala beedka Ilaahay lama xiran iyo masjidka Nabiga muxuu ahaa magaalada Madiina ku taalay maxal dhahay Madiina al-Munawwara magaalada la dhahayay maasha Allah lama xiran kaliya waxa xirnaa Baytul Maqdis marka waxaan walaalayaal idin xasuusinayaa wax yar hadaan dad muslina inta aan muslimka ahayn ani waxba igama gelin dadkaas lama hadlayo waa Soomaalida ee ashhaadanaysa ee qof walba leh laa ilaaha illa Allah Muhammadur Rasuulullah dhahaya ashahaadada soo maraysa afkiisa waxaan leeyahay kal iyo laab baa idin xasuusinayaa walaalayaal dad walaalanahay
haddii aan qaldanaha qaladka inaan ku wada yaacno ma fiicno. waxaa fiican inuu qof kamida dadka qabta ayaa fiican. waan arkay ani youtuber baan ahay, intaas baan ku jira alxamdulilah. wax iga maqan ma lahan, ilaahay wuxuu isiiyo. wax iga maqan ma jira maanta oon adduunyo u baahana ma rabo. ani aaqaraan rabaa, aaqara ayaan doonayaa in ugu filan ilaahay uu isiiyo alxamdulilah. inta aan haysanina waxaan ilaaha uga baryayaa ayagana faraj kheyr qaba inuu u furo. walaalayaalo waxaan rabaa inaan idin sheego marka, gabdho iyo wiilalba waxaan xasuusinayaa oo mar labaadna xasuusinayaa, ramadaan baa soo dhow. challengegan aan ku jirno ee youtube-ka lagu challenge gareynayo cunto karinta iyo muxuu ahaa waxyaalahan baraanka iyo muxuu ahaa waxaan micno lahayn ee ma aragtay ummadda lagu mashquulinayo. haddii walaalay macaanay ama walaalkayow ama walaashayay, haddaad wax fiican sameynayso, wax fiican oo dadkaaga anfaca sameey. laakiin wax yaro indhaha lagu qurxinayo beritana laga dhimanayo waxba nooma faa-iideynaya, idinkana idinma faa-iideynayo. laakiin idinka waad ka faa-iideysanaysaan, sababtoo ah idinka wuxuu idin yahay macnaha views baad ku heleysaan iyo lacag. taas ani ma u baahanay, waan diiday wallahi, waan damcanaa soo galo because challengegaas iyo farxaddaas iyo reereyntaas aan ku jirno waxa weeye waxba inooma keenayso. xilli xun baan ku jirnaa oo xaaladina ay xun tahay oo caalamkana ka xun yahay. muxuu ahaa ummadii soomaaliyeedna ay la daala dhacayaan gaajo iyo abaaro iyo muxuu ahaa qaxootinimo iyo ma aragtay caafimaad darro iyo biyo la-aan meel walba oo africa ku yaala ay joogaan. badanaa wadankii soomaaliya, somaliland, jabuuti, soomaali galbeed, nfd, soomaalida degan oo dhan way wada cabanayaan. muslimiintana sidoo kale meel walba ay joogaan way dhiban yihiin. alla bari baan u baahannahay, muxuu ahaa alla ka cabsi baan u baahannahay. inaan ilaaha u noqonaan doonaynaa, inaan ilaahay maaragtay caabudnaan doonaynaa, inaan ummadeena masaakiinta garab istaagnaan doonaynaa. youtuberada waxaan ka codsanayaa idinkoo iga xumaanin oo muxuu ahaa xumaanna ii fahmin. ani weli lacag la iima bilaabin, ilaahay baa igu og, mana gaarin 1000kii ilaa iyo hadda 4 sano baan kusii socdaa. 1000kii ma gaarin oo subscribe-ki yacni 1000 ma gaarin. viewskana 4000 iyo xoogaa baan marayaa, waayo dadkaygaa yar, dad ma haysto. taasna waxba iguma ahan, maalintu ilaah ii qadaro ayaan dhargayaa oo macnaha youtube-kayga uu fuul noqonayaa haddii alla idmo. waxbana maaha degdeg inuu dhib uu leeyahay. soomaalina waxay tiraahdaa wixii daaha ayuu qeyrka ku jiraa. marka waxaa laga yaabaa youtube-kayga dib u dhacaan iyo daahitaankan uu daahay inuu qeyr iigu jiro ayaa laga yaabaa, oo gadaal dambe aan ka helayo insha allah views. dadka viewska haleow, micnaha waxaan sheegayaa ummadan youtuberada ah iyo inta ganacsiyada leh iyo ganacsatada, dukaamaleyda. xataa waa arkay gabdho badan oo youtubera ah oo dukaamalana waan arkay ku tartamaya daawooyinka laysku cadeeyo, daawooyinka laysku dhaqo, dharka, duruucda adduunka, cabaayadaha waan arkay. walaalay macaane lacagtaas berita waxay kuma tarayso, aad ka dhimanaysaa, aaqaraad aadaysaa. muxuu ahaa ka dhigo akoon ka samaysa aaqaro oo masaakiinta qoodi, intii aad awoodo wax ka sii, walow haddaadan bil walba siini karin oo naftiisana ama qoyskaas kafaalo qaadi karin. waxaad kafaalo qaadaa kaliya bisha ramadaan, kafaalo qaada masaakiinta iyo dadkan muxuu ahaa ma aragtay danyarta ah. bisha ramadaan kaliya kafaalo qaada, bisha ramadaan kaliya ha la qoodiyo ummadan, iyo bisha ciida ah, ciida caraf haddii alla idmo insha allah, waa haddii ilaahayna gaarsiiyo. walaalayaal waa idinka codsanayaa, dar allaan idinka codsanayaa, dar alle ayaan idin xasuusinayaa. xataa waxaa iisii dheer oo la yaabanahay maanta oo aad iyo aad ula yaabay waxa weeye, waxaan arkay bishan dhowr jeer waxaan arkay heese dhacayo oo baadhiyo la dhigayana waan arkay. inamada soomaaliyeed
ay dhigayaan ama dhalinta soomaaliyeed ay dhigayaanna waan arkay. waxaana wax faa-iida ma lahan, dhibaataiyo xanuun baa laga qaadayaa, xanuun baa jiro. muxuu ahaa ka digtoonaada, guryihiina jooga. waxaan hataad idinku heesaha iyo meeshan baadhigan ku jiro haddii ay idinku dhacdo ood ku xanuunsataan xanuunkan oo aad ku dhimataanna haddee wixii dembi idinka soo gaara idinkaa ka mas-uula. marka waxaa idin dhihi lahaa hala joojiyo wax walba oo adduunka ilaahay weli maan arag ummad ku madax adag wixii iyaga ay rabaan. wa naftiina ha dilina, naftu waa shay cajiiba oo qaali ah oo wanaagsan. naftiinana ha dilina, muxuu ahaa ka ilaaliya dhibaatada. intaasaan ooga baxayaa. youtuberada ayaan la hadlayaa. maasha allah waxaan arkayay shalay walaalkeen CK family CK maasha allah taageerayaashiisaan ku jiraa oo kamid ahay, inuu maaragtay ballan qaaday inuu dad afurin doono ramadaanka. maasha allah tabaarakallah. waxaan leeyahay walaalkay ilaahay ha ajir iyo xasanaad ha kaa siiyo. ha ku daydaan leeyahay ummadan kale youtuberada ah ee youtubeleyda ah youtubada haysto ku dayda walaalkeen. marka ummadan youtube ka haystaan la hadlayaa iyo dadkan ganacsiga haysta soomaaliyeed iyo ganacsatada iyo maalqabeenka kulli waxaan leeyahay danyarta iyo masaakiinta hala qoodiyo bisha ramadaan, hala afuriyo bisha dhan. muxuu ahaa ciidana ha laga bixiyo, haddii ala idmo ha laga farxiyo, farxadana inala qaybsadaan iyo muxuu ahaa ramadaanka ay nala qaybsadaan. qof walba wuxuu awooda ha bixiyo, awoodaaday ku xiran tahay. qasabna maaha haddaad waxba haysanin inaad wax bixiso, waa haddaad awoodo ilaahayna wax ku siiyey bixi walaashay iyo walaalkay. fadlan waxaan la hadlayaa ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan. qof walba oo i fahmayo waxaan ka rajeynayaa inuu videogan sii sheer gareeyo, like iyo subscribe-na uu sii saaro insha allah, siina gudbiyo. waxaan idinku codsanayaa mar labaadna inaad sii faafisaan. intaasaana uga baxayaa haddii ala idmo. waxaana idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. ramadaan mubaarak mar labaad iyo mar saddexaadba ramadaan mubaarak. haddaba isbuucan buu soo gelayaa. intaasaan uga baxayaa challengegii youtubeleydana anigu kuma jiri, waan ka baxay sababtoo ah aniga murug yarbaa isaarnaa. ummadan masaakiintaan ka walwalsanaa oo aan ka walwalayay oo aan ka walbahaarayay. ilaahay ha ii dambi dhaafo. wax aan ahaya oona awoodo waan ku kaalmayn doona haddii ala idmo. laakiin maanta wax ma ballan qaadi karo sababtoo ah ilaahay qafuur raxiimka ayaan u baryayaa, waan u duceynayaa inti karaankayga ah. walaalahayga soomaaliyeedna toobada waa furan tahay, usoo laabta ilaahay waana la idin dambi dhaafayaa. haddii aad gaalo ahaydeenna qaarkiin oo aad rabtaan inaad diintiina dib ugu soo noqotaana dambi dhaafka wuu furan yahay, waa la idin dambi dhaafayaa. diintiina waa gacan furan tahay, waa la idin soo dhaweynaysaa mar labaad. waa diintii laydinku soo koriyo ee aad ku dhalateen. haddana intayna qoraxda meesha u dhacda kasoo bixin, qof walba waxaad gacanta ku hayso iska dhig, diintaada kusoo laabo. ilaahay waa qafuuru raxiim. wuxuu yiri ilaahay qof walba oo towbada ii towbad keena anigu addoonkayga waan soo dhaweynayaa, waana u dambi dhaafayaa, waana u naxariisanayaa. qof walba salaadiisana hadduu xataa dhib ku yahay ilaahay baa u fududeynayo. ramadaanka waxaa laga yaabaa inuu wixii dhib kusoo mara iyo wixii dhibaato ah iyo ciriiri ah xagga salaada, xagga muxuu ahaa raasoonka, xagga muxuu ahaa wax walba sadaqada sakada uu kaa saarnaa, ama aad ahayd caasi waalidiin wax walba uu kaa masaxayaa. niyeyso inaad diintaada dib ugu soo noqoto, niyeyso inuu ilaahay wax walba oo xumaana kaa madoobeeyo.
wax kasta ilaahay ha idinka midoobeeyo xumaan oo dhan iyo dhibaato oo dhan iyo dhib kasta oo idin hayana allah idinka dulqaado ramadaankana ilaahay nabad iyo caafimaad ha inagu gaarsiiyo waa walaashii nimca nuura channel oo idinla gacmo furan kusoo dhawaada meel walba aad joogtaan insha allah ramadaankana youtube-kayga fuul buu ahaanayaa maalin kastana haddii alla idmo waan soo gelinayaa cuntada ayaan aada usoo gelin doonaa insha allah cunto karinta waana fududeyn doonaa haddii alla idmo in badan baan garanayaa haddii ilaa yiraahdo laakiin waxaan ku bedeshay sheeko iyo hadal balse insha allah ramadaanka waxaan rajeynayaa inaan u faa-iideeyo walaalahay waxaan idin leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu